bal CK muxuu ka yidhi Najuu Caraale. Najuu Caraale ani iyada waxa isnaqaanay 10 jir anagoo ah. Tris muxuu ka yidhi isagu Najuu Caraale ama muxuu ka aaminsan yahay. Alu waxan fara mu ku yaa akhrisanay garanaysaa. Haddaba Najuu labadaba maxay iyadu ka aaminsan tahay. Ani Idris loo isguursan rabnaa. Aniga iyo CK maxaa naga dhaxeeyay? Yes, waxa naga dhaxeeyay xiriir banaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي كوسو لو يوتيوب channel ولكن عبد الرحمن كاري بانت halkan waxaan kaga hadli doonaa waxa weeyaan arrinka ku saabsan Najuu Caraale CK iyo Idris Cabdi maadaama social media maalmaha qabsadeen oo leeyahay hebel laga riday hebel ka yiri arrinkaas ay rabaa maanta in halkan waxyaabo dadku ayna ogeyn aan idla wadaago arrinkaas oo noqon doona dhamaantii u badnaan doona waxyaabo oo hore aan ogaa iyo waxyaabo maxay ahaydeen soo helayba marka barnaamijku wuxuu noqon doonaa kaliya xog inuu warcidna camaarin cidna caayin ayaan waxaan isku dayi doonaa in haddana xog yar oo hoose saynada ugu soo dawaqin aan idinka gudbiyo insha Allah idinka soo siiyo soo dhawaad marka hore horta waxaan channelka haddii aad ku cusub tahay marka hore subscribe waa muhiim waxaan doonayaa barnaamijkan kaga hadlo dhowr su'aalood oo ka iman kara maxay ahayd arrinka saddex geesoodkan idin sheegay hadda CK Idris iyo inanta macnaha ku dhex jirta labada nin ee isku cadowga iyagu sii sheegtayna horta marka hore waxaan ka hadli doonaa sheekada ah in iyagu macnaha Najuu Caraale iyo CK in xiriir ka dhaxeeyo barnaamij arrinka maxaa ka jira maxaa sakarona marka hore kaasaan ka hadli doonaa waxa kale oo isagana ka hadli doonaa Idris isaga sheekadan maxaa ka galay Idris habay si qaranaynaantay haddana xiriir hore ka dhaxeyn maxaa isaga ka galay iyo su'aasha kale ee ilaa hadda talala yaabmiyay baan oran karo waa arrinka kaliya ee maxay ahayd keenay atashanka dadku siiyeen waxa weeyaan hadiiba ay in yar iskaranayaan 2 bilood kaliya waxa kalifay xiriirkii labada qof ay isku sheegin jireen YouTube ka laga shaaciyo waxa kalifay in maxay dadku CK iyo Najuu Caraale markii ay wax xiriir ka sheegteen markii maxay dadka maskaxdooda ay ugu soo dhacay Idris taasina waa arrin kale iyaduna meesha ku lamaan dooneen meesha ku loo fagurno isaa waxaan kulay kala jeedano yadda su'aasha meesha iska cad taalo ayadana taw dambe noqon doonto ah CK muxuu la saaxiibadii Idris ee hore ama yaana xiriir ka dhaxay laakiin loo qof ay marka hore isku dhawaayeen oo inaan ahayd ولوغاين يسوق سوشا ساري وwaxaan ku leeyahay Idris magaalada Bareetaka waxa kalifay in CK oo illa heer ula gaaro xiriirkeeda YouTube ka dhaxshayo hadaba saad arkaysan dhowrka qodob baan kaga hadli doonaa horta marka hore YouTube maanta barnaamijkeenin marka ay qodob inagoo waqtiina ka faa'iideysan waxaan usoo koobi doonaa saynu soo koobno inagoo waqtiina ka faa'iideysan Idris Cabdi iyo Najuu Caraale dhowr bilood ka hor bay is arkeen waliba ay ugu timid magaalada maxay ahayd Foral magaalada degay usri ka degay ay uga timid iyadoo ka timid wadanka ay joogto uga timaaday ay ilaa intaas oo safar kaliya soo gashay si ay ula kulanto haddaba barnaamijka meesha aaba waxa sheegay waxyaabo iyaga dhexdooda ka faa'iideen noo sheegay marka hore oo ah in ay Najuu Caraale iyo CK sheegeen in ay markii hore ay barnaamij message soo dirtay iyadoo maalmii hore barashadoodii macnaha marka laga imaado in berisku xaafadaayeen kabacdi CK intuu arkay qoraalkiisa ka dhaafay inuu soo jawaabin iyaduna halkii uga cuqdad uga qaaday macnaha uu aragtay qof oo iska weynaysiinay kadib ay sameysay in xiriir la sameyso heer macnaha xiriir macnaha jacayl lahayn laakiin saaxiibtinimo ay la sameysay Idris Cabdi heer gaadhay ilaa heer ay gaadhay Idris halku joogo ugu tagto gurigiisa ugu tagto marka intii heer ka gaadho oo ay u tagto saaxiib intaas inuu isku dhawaadaan ay YouTube-keena ku soo kala kicay Idris lagtiisa oo Idrisna waliba gacan aad u weyn uu ka siiyay si uu YouTube-keena ugu soo kaco waxa ku leeyahay maalmaha dhowr ka cishay meesha joogtay maalin walba wax la duway marka Idris lama ogeyn inayna tan ka careysan tahay CK kaliya wuxuu ogaanay isaga u soo wacday caawiyo intaas kaliya buu waa iyaduna waxay ka careysay CK waxay doonaysay in CK tusi karto maadaama marka warkiisa Idris cadowga CK say CK uga argudotay lahayd ninkaas ka kabanay muxuu tarayaa bay waxay ugu tagtay Idris marka horeba kama haynayay u tagitaankeedu kaliya inay isagana la saaxiibto daacada kama hayn waxay laba ujeedo kaliya ka lahayd waxa YouTube-kaaga kiciso waa ku soo kaco CK-na isbar ha ku arkayso halka ka arkay maadaama ogtahay labadan isku cawiyo de qofkii ka soo dhawaada uu CK ilgooniyo ku eegayo marka waxa dhacday halkii ka bacdi markii ka soo noqotay hawlihii doonaysay si fiican ugu soo maaragtaan dhamaadeen inay disayn wada ogeyn bay haddana gadaal arrinkan uu ka soo baxay ah in CK iyo Najuu Caraale yihiin laba qof hore isku yaqaanay oo ilaa wadankii markii dambe heer ay gaadhay la yiraahdaan waa jacayl iyo xiriir baa naga dhaxeeya ugu weyn meesha yaala waxa weeyaan maxaa kalifay in jacaylkoodii haba ka dhaxeeyo oo ceeb maahay waliba inaan ka soo dhaxin jiray YouTube lagu shaaciyo waliba tan isagoo ay sheegeen laba bilood kaliya xiriir ka dhaxeeyo
laba bilood wax badan ma hadda waa 6 cisho 6 cisho wili labada qof inay arago inay isku iman way iska adagtay de way iska garanaa labada qof xiriir way sameyn karaan laba habeen lagu sameyn karaa wax weyn ma laakiin in la heer la gaaro YouTube la soo dhigo la hebel baxir naga dhaxeeya maxay ku kalifay inay YouTube ka soo sheegaan iyagoo og inaan isku xalaalahayn oo macna ilaa de family iyagoo leh in suuqa saaha sirfu iskaga xidhaan oo ay u sameeyaan saa maxay kalifay taa hadii marka hore gudo galan waxa weeyaan CK ina jucaraale ujeedadoodu ma aha xiriir meesha wax xiriir la yiraahdo oo jacay in iman doono mooyay hadda ma jiro horta waa arrinka ugu weyn ee ah inay dadkoo dhan marka hore ogaadaan waa loo fahmin meesha jacayl dhabi ka dhaxeeyo ina jucaraale faa'iidada ugu jirto waa maxay in iyadoo inaan ay suuqa dhan iskaga xidhay CK baa la sheekaysaa horta faa'iidada iyada ugu jirta isagana faa'iidada ugu jirta faa'iidada iyada ugu jirta waa number 2 waxa YouTube keeda rabtay 100k u gaaro oo run diris uu soo kiciyay oo dadris uu la soo kiciyo 50k uu la soo gaarsiiyay 50 oo isaga dartii ku soo baratay maantana waxa weeyaan vision-keeda labaad oo ah 100k in gaadho si Aisha Asiis ay waxay aragtay in aan markana bal CK team CK dadka leeyahay maaragtay asxaabta CK iyo faniskiisa inay 100ka u xidhaan bay rabtaa waad qodobka koowaad iyada horta ka rabto arrinka oo barnaamijka CK macnaha in 100k ku dhameystirato waa ka labaad waxa weeyaan arrimaha macnaha waxa weeyaan xiriirkii iyada Idris ka dhaxeeyay ama saaxiibtinimadiisa iyada Idris ka dhaxeeyay waxa yaraatay markii kala fogaadeen oo sidii hore uma sii adkaan oo Idrisna hawlihiisu iska qabsaday iyaduna hawlihiisa iska qabsatay maadaama saasi de macnaha sidii ay rabtay iyadoo aan atashan badan u siin Idris u siin waxay kalifteen xaggii CK uga faa'iideysato CK oo isaguna de markuu ku soo arkay xagga de markii sirninkii inantii cadawga u tagtay maalmo hore wax ku soo qorqoraysay bal wixii uga jawaab de waa sagan saynana halkii isaguna kala hadlay oo macnaha in badan ka wada hadlay waqti ka wada qaateen taasna waxay kalifteen iyadii ay isagii CK xaggiisa soo badato marka qodobka labaad ay ka faa'iideysaa waxa weeyaan haddii aynu soo koobno waa koow ah in 100k gaadho subscribe ima ka sadar ka salabay 15 ayaa ku soo biiray 60 bi maraysan ka 20 maraysa iyo talabaad oo ah in Idrisade oo yar xanuujisa Idrisade xogaa in Idris meeshii xanuunka hal guddoonaba ha gaadho laakiin xogaa xanuun uga dhigto iyo arrinka kale ugu weyn ee iyada faa'iideyso ah iyo CK bawlibana oo ah si wada jir ay u faa'iiday waxa weeye in social media dhowr week ay u xirnaadaan saayimka ba dhacday oo la yiraahdo labadaas saaw iyagu la hadalhayo xitaa odayaashu ka sheekeeyaan arigaasina wuxuu ahaa arrinka ugu weyn iyaguna isla rabeen bahayd hadda waxaan idin sheegayaa CK isaga maxaa ugu jira meesha waa dadka qaar baa wax isweydiinayay CK isagu markii soo kala kaarsanaa waxa ujeedada ugu jirtay iyo faa'iidada ugu jirtay inuu YouTube soo gashaa ayuu yiraahdaa waa saaxiibada jacayl waa ayaa weyn oo kalifay maxaa sababay horta mid idin sheegay waxa weeyaan sidaan idin sheegay arrinkii ugu weynaa ee ahaa inay suuq qabsadaan waa number 1 iyo arrinka labaad oo ah inuu waxa ku leeyahay halkii u dambeysay intuu xanuujin karo waxaanu Idrisle waa sagraan bini aadan ahaan qofku waxa ku samaysan yahay qof oo la saaxiib iska dhaaf jacayl haddii qof cadawgaaga uu biro tago de ka siixan maysi habeen iyo 2 toban markaas uu hurdo la'aan ugu riday Idrisle uu Idris isku weydiiyay su'aalo badan oo arkay nabada YouTube-kiisa reaction-kiisa uu bixinay ka muuqanaysa isaga laftiisa wajigiisa uu qarsan kari lahaa soo wax xanaaqay ama wax xumaaday taas waa lambarkiisa koowaad oo ah cadawgiisa inuu araxda ka jeebiyo iyo talabaad oo ah in isaga laftiisa isaga iyo markii daleeran juucar hala ama iskuursanay ama isjecel CK in badan loogaa oo dhowr jeer horena sheego in jir xiriir milay ralgura xiriir bilay adduunka qof walba oo xitaa horu daawo jira baa jeclaysanay binu taado yiraahdo waa CK maxaa ku soo kordhay waxa inta ku soo kordhay waa tuma marka isaga laftiisa dhowr intaas oo dhan baa la hadalhaynaya marka ujeedadu weyn waxa weeyaan in YouTube-badoodu u sii qarxaan mid walba oo qaraxsan laakiin mid iyaduna ay 100 ku gaadho isaguna ugu yaraan 500 ku baa la sheegay in ku sii socdo hadda 500 ku rabo in si gaadho si qarxo marka labada arrin ugu waaweyn ee CK iyadu CK iyo inantu ay ka wateen waxa ay taa maxaa soo hadhay Idris isaga maxaa meesha ugu jiray shiga horta qasaaraha ugu weyn dhibta ugu weyn ee soo gaadho waxa weeyaan saaxiibadiisa isagoo sheegay horta Idris waxa weeyaan ku yar duwan yahay baa qof wax qarin karaya wallahi ka daacad heer uga gaadhay waxa weeyaan Idris haddii maanta ku soo dhacdo kamarada uu soo fariisto ay ku soo dhacdo in wax dhaba sheego ama sir hayd sheego wixii diisi saas ku sheegay dareenku isagu arrinkan ka qabina de ficil ahaan iyo qowl ahaan buu sheegay ficil ahaan uu sheegay de wajigiisa dharkan markiiba soo isku bedelay oo wax maaday iyo hadal ahaan uu dhowr jeer yiri way noo sarbeeb wuxuu yiri hadalkii ahaa macna fiyo gira inuu sarbeebina waan deynay soo dhigay waa kan
taasina waxay muujinaysaa in dirisle uu aad uga xumaaday macnaha uu dareemay in inantii ay usoo istaagtay boos uu cadow ka dhigan karo haddana isagoo saase wuxuu iska ilaalinayay inuu hadalka bilaabo isagoo ama hadal xumaanta bilaabo wuu iskiijinay wuxuu lahaa ilaa hadda aniga waxba imi gaadhin macnaa ilaa hadda aniga magacayga lama soo hadalqaadin laakiin waxay moodaa inuu aad isku diyaar gareynay dirisle si ugu jawaabi lahaa haddii arrinku isaga ay soo gaadho waxa kale oo aynu meesha horta kala baxnayn ogaanay oo dhammaanteen bay wada ogaanay waxa weeyaan CK iyo dirisle marka hore way ogay laba qof isku cadow oo isku sanbanaan inay yihiin laakiin ilaa heerkii gaadhsantay si muxuu yidhi markuu dhawi dirisle macnaa inay aad cool u yihiin waxyaabaha sii muujinaya waxa weeyaan inuu dirisle haddana sii yidhi qofka ama saaxiibada haddii cadowgaaga u tagto qof oo idinka saaxiib hayda hadduu cadowgaaga u tago waxa laga soo qaadaa cadowgaaga oo kale taasoo muujinaysa inuu horta markii kuwa CK u xaqiiqsan inuu yahay cadowgiisa iyadana haddii ay dee raacdo way cadowgiisa u noqonayso horta way iska cadday taasi waayo waxyaabaha uu ka faa'iidayay CK waxa kale ugu jira sira badan waa se garaan sawaynan oo de waxaa la yidhi dumarku hal mar isaa wax u siiyaanba waxay ogaadaan tin iyo cirib ay hal mar isha mariyaan marka isagoo ka faa'iidaysanaya ildheeraanta inantaas maadaama ilaa gurigiisa tagtay oo laga yaabo in edhitka usoo edhit karay fiidiyoyada qaar ama uu erkiis marku sameynayay barnaamijka soo dhan iyo waxyaabuu ku fikiraya dee qof aad la joogtay iyo qof youtube-ka aad ka aragtay kala duwantii marka information buuxa si uga helo so keliyaata ujeed haba yaraatay waxa uu leeyahay dan oo ama jacayl uu najuu ka leeyahay ma jidho laakiin arrinka ugu weyn waxa weeyaan sir ka hel ku xumee iyo arrimo noocaas ayuunbu siikay arrinkaa isagaa u sameeynayaa dirislena dee wuxuu dareemaya uu sahin kari lahay wax kale maaha dee arrinku waa ku xun yahay oo waxaad moodaa in mararka qaar xataa isfiyogiisa moodaysa inuu dee inuu hinba soo qabanayso najuu caraalana iyaduna waxa weeyaan keliya waxay ka faa'iidaysanaysaa hadal haynta labada team CK iyo team dirisle ay hadal hayaan waa inta ujeedadeedu ugu weyn waa intaa oo ah maanta CK baa kuwii CK asxaabtiisa oo dhan baa ku hadalhaysa hore iyaga kuwii dirisle wadu haysay inay ka faa'iido kuwa maarata waxaasoo dhan urursato haddii ay ka tahay dirisle macnaha CK dee ay ka tahay xiriirka ay ka tahay qof oo xiriirkiisa sheegta ama ay najuuba ka tahay mar walba qaar youtube-kooda ku sheegta horeynu arki lahayn weli maynu aragteen CKO inta soo fadhiistay yidhi maanta tanaa la sheekaysan ila caqligal maaha ninka intaa laga leeyahay weligii muu sheekaysane najuuna sidoo kale hore uma sheegi jirin cidna lagama arki jirin meelahana may soo dhigi jirin midda kale labada qof ee iyagu jacaylka dhabta ka dhexeey maxaa lagu gartaa kale instagramkii soo dhigan lahayd jacaylkaygii ama waxay snapchat ku saasi leeg midkoodna mid kale muu soo dhigay youtube keliya waa in la daawado ay rabeen lacag ka faa'iideen ujeedka ugu intaas u ahaa oo de midkan wax u qorxo midka kale wax ka faa'iido iyo ku xumayn saaxiibkan dirisle lagu sameynayay iyo ku xumayn lagu sameynay dirisle markaa ujeed dadku iyo waxaan odhan lahaa asxaabteen dhammaanteen inta fideogan aragtay inta dee meelo kaleba kama qashaba yaan lagu kadsoomin waxyaabaha ay rabaan inay suuqa un ku qabsadaan suuqa youtube-ka iyo social media ay ku qabsadaan laakiin dadka qaar dee waa iska daacado markii wuxuu waa ninkii CK mar hadduu inantaa soo dhigay waa dhab iyadina afka ka sheegtay isagoo ka sheegay laakiin waxaan idin sheegi doonaa berito loo arki doontaan sheekadan ama waxay noqon doontaa horta marnaba idin soo odhan maayaan braak buu ahaa oo waa habeen xiriirtiin intaa soo dhahaan laakiin waa mustasal keliya ta lagu rabo in shacabka lagu qabsado beritoolana macnaha si dee maalinba dhinac loo raro oo dadku saa u daba yaacaan maalinba dhinac loo raro maalin dirisle lagu xumeeyo maalinka kale lagu xumeeyo mada ugu weyn waa saan sheegay oo nin walba dantiisu eeganayay meesha wax xiriir la yahay ma jiro dirisle najuu ma jecla najuu CK ma jecla qofna qof ma jecla laakiin ujeedooyinkaa jacayl keenaya ujeedooyin waxaa jira iyagu keenaya meesha oo ah views waxaan la yidhaha ama dadkii la helo oo iyadu najuu xogaa dee aad bay hooseysaa subscribe iyadu weyn ujeedada ugu weyn waa subscribe in hesho CK-na waa in views badan helo barnaamijyadii laga helay laga hadlo oo cusub oo dhashay maalin walba len barnaamijka kasoo hadla markaa waxa way ku yaraanay iyaga laftooda moogta iyo dirisle oo isagu ku dhex dawaqay war inantii maceebahaagii faafisay uu ka seexan lahay way garan karaan asaan hore u soo sheegay bal CK muxuu ka yidhi najuu caraale najuu caraale aniga iyada waxaa isnaqaanay 10 jir annagoo ah dirisle muxuu ka yidhi isagu najuu caraale ama muxuu ka aaminsan yahay anigu waxaan faraha wuu ku yaa akhrisanaya garanaysaa haddaba najuu labadaba maxay iyadu ka aaminsan tahay aniga dirisle isguursan rabnaa aniga iyo CK maxaa naga dhexeeya yes waxaa naga dhexeeya xiriir baa naga midda kale idin sheegaya waxa weeyaan haddii aad channelka ku cusubtay fadlan subscribe wac ka sii baan ku bilbaan si aan annagana dib dhiirigeliyo u noqotaasi waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo